marka waxaan dareemayaa hooyo la'aanta waxay tahay insha Allah. ladan maxamuud axmed waa gabar dhalinyaro ah oo hadda ka hor iyadoo ku sugan magaalada Qardho bulshada Soomaaliyeed ka heshay garab iyo gaashaan kadib markii ay ka cabatay dhibaato ayada la soo diristay. runtii waxay maanta tan igu abuuray inaan tan la bixiyo oo aan tan sameeyo waa hawl aan arkay ama marxalad aan soo maray maanta Saciid Maxaa Cabdulle ku jira. balse maanta arrintu sidaa waa ka duwan tahay oo waxay leedahay safka hore ka istaagtay gurmad iyo saafo la doonayo in loo sameeyo Saciid Maxamed Cabdulle oo muddo 10 sano ah ugu xirnaa xabsiga Garowe dayn mageed oo cadadkeeda lagu qiyaasay $35,000. waxaana booskii kaliya ahaa ee ay ku lahayd Garowe ku wareejisay Saciid Maxamed Cabdulle oo xabsiga Garowe muddo 10 sano ah wehel ahaa. waxaanu joognaa duleedka magaalada Garowe buurta Neeg ayaanu joognaa halkan maanta waxa ku sugan Sheekh Yaasiin oo kamid ah culimada Puntland iyo ladan oo iyadana gabar dhalinyaro ah ka timid magaalada Boosaaso halkan maanta waxa loo joogaa oo aanu maanta halkan u nimi in booskan aanu taaganahay lagu wareejiyo Saciid Maxamed Cabdulle oo ah nin maxbuus ah oo muddo 10 sano ku siban ku xiran xabsiga magaalada Garowe kadib markii shil gaari uu waday uu shil garay dadna ay ku dhinteen. Saciid Maxamed Cabdulle 10 kaas sano ayuu halka ku xirnaa manager marka laga reebo bulshada Soomaaliyeed ladan oo daawatay muuqaal laga duubay Saciid Maxamed Cabdulle oo boos joogtay ayaa halkan u timi inay ku wareejiso booskiisii culimaha booskeeda ay ku wareejiso si markaasi lacagta ka dhiman oo lagu sheegay inay 4,000 tahay ay booskaas ugu wareejiso. ladan waxa laga yaabaa hore inay muuqaalkeeda u daawateen maantana halkan waxay joogtaa inay miskiin caawiso oo sidii hore loogu caawiyay dhibta mataqaana ay dareentay dawladna ay qof miskiin caawiso. waxa anigoo ah ladan maxamuud axmed waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka waxaan leeyahay Ramadaan Kariim waa maalin khayr waa fadligeeda wadata inaad adoo dhalinyaro ah oo gabar maanta aad ogaato sadaqadu waxay tahay aniga shalay Ramadaanka hore waa la caawiyay Soomaali baa caawisa maantana waxaan bixinayaa halkii boos oo ka soo jeeday hooyada Cadal Cabshire Ilaahay ha u naxariisto waa halkii sadaqo hooyada maanta dhaxalkeeda ahaa oo Garowe ku yaalay runtii damiirkayga ay siiyay inaan maalinta Arbacada daawada arrintaas Khaliif Geelle uu soo bandhigay waxaa la Khaliif Geelle oo ku mahadsan tahay sida aan la soo socodsiiso waxaan rajaynayaa insha Allah in halka uu imi maanta in khayrka gudoonsiyo shuyuukhda maanta wakiil uu ka yahay Yaasiin Cabdullaahi Ilaahay raxmadiisa naxariistiisa ugu gargaaro waxa ay leeyahay mar koowaad iyo mar labaad baa loo soo gurmado walaalkay anigu maanta halka wax u taagna wadar Ilaahay inaan walaalkay ugu wareejiyo anoo Soomaalinimo kasoo koobmaanta Ilaahay dartii baan ugu wareejinaya walaalkay sadaqada Ilaahayna sadaqa jaariyan ka weydiisanaya isagana Ilaahay inuu kurbada ka faydo maalinta iida aan rajaynayo in xoriyadiisa ku iido marka booskan imsi weey booskan wala 10 hadda koor mar baa hal igu qiimay lacag 6,000 waqti hore ay ahayd wuxuu rabaa u noqdo ilaahu $20,000 u noqdo waxa ku kalifay marka in booski dhamaa oo adiga ka dhacay inaad wareejisid waxa igu kalifay marka arkay dhibka walaalkay wuxuu yiri kalmadii aad ii xanaad waxay ahayd hooyada oo dhimatay maan ogaan marka waxaan dareemayaa hooyo la'aanta waxay tahay insha Allah. ladan oo taageerida soo deynta maxbuus Saciid Maxamed Cabdulle darteed uga soo socdaashay magaalada Boosaaso waxay maanta hantideedii dhulka ahayd ee ay ku lahayd Garowe farta ka saartay Saciid oo ay wakiil ka yihiin qaar ka mid ah culimada Puntland kuwaas oo ku hawlan sidii xabsiga looga sii deyn lahaa. Sheekh Yaasiin Cabdullaahi oo ka mid ah culimada isu taagtay soo ururinta hantida loo haysto maxbuus Saciid Maxamed Cabdulle ayaa xog waran ka bixiyay hawsha ay ugu jiraan maxbuus Saciid wuxuuna sidoo kale bogaadiyay kaalinta ay ka qaadatay ladan maxamuud axmed oo booskeedii kaliya ah alla dartiis u bixisay. booskan ladan maxamuud axmed bixisay gabadhan yartaayo da'da yar waxay ku ugu deeqday booskan Saciid Maxamed Cabdulle oo maxbuuskii 35,000 loo haystay ahaa kadib markii in badan oo kamid ah magihii loo dhaafay waxa culimada gacanta ku haysay 31 meelahaas waa maranaya waxa ka dhinaa ilaa 4,000 waxa ka dhiman ama adu dhowr kun 5 ama 4 dheh halkan maanta ladan waxay ku deeqday booskan oo saan u ah dherarkan waa 20 saan balacaana u saaran wadada 10 isagoo notaayadiisii iyo nidaamkiisiina aan gacanta ku hayno oo ay nagu wareejisay hadeer ladan oo halka ay ku cad yihiin dukumeentiga dhamaantiis
waxaa geesinimo leh runtii mudanna in loogu dacayo ladan halkaa boos bay hooyadeed oo dhimatay cadal cali shiine ka dhaxashay halkii boos bay bixisay qoftaas hooyada u sadaqaysay iyada ruuxeedu way dareemaysaayo hooyada xaggiisa iyo xanuunka ay lahayd iyo waatan ay la ooyeyso haddeer intaa waxaa dheer iyada ruuxeedu waxay sheegtay in loo gurmaday ramadaankiisa kale intaasoo dhan munaasabad gaar ay leedahay waxaan leenahay ladan allah barakeeyo ilaahi subxaana wa tacaala gabadha dhalinyarta diintiisa ha ku hanuuniyo iimaanka ha ugu quweeyo ha ugu adkeeyo qof ahludiin allah ka dhigo iimaan qawiya allah siiyo meesha ka soo bixisa wax ka khayr badan allah ugu bedelo miisaanka xasanaadka allah u saaro ilaahi subxaana wa tacaala waxay ku farxada ha siiyo ciriir ilaahay ma geliyo ilaahay dhib ma tuso ilaahay tarar ha siiyo ilaahay tayaha u yeelo qofta allah barakeeyo ladan waxay sheegtay in sababta ku kaliftay bixinta booskeeda in ay tahay dhibkii shalay haystay oo ay ku aragtay maxbuus Siciid Maxamed Cabdulle runtii waxay maanta tan igu abuuray inaan tan la bixiyo oo aan tan sameeyo waa hawl aan arkay ama marxalad aan soo maray maanta Siciid Maxamed Cabdulle ku jira Siciid Maxamed Cabdulle wuxuu iga sii daraya maanta ma haysto xorriyad uu ku maro maanta hooyadiisa dhashay isagoo jeel ku jiray dhimata mana ogeyn waqti dambe buu ogaaday taas darankeeda xaqiiqatan maanta arbacada anoo gurigeyga dhex fadhiya baan daawaday kowde khaliifkeena la soo hadlay khaliifkeena waxaan kursasaa jirta Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf isagan ilaahay dambigiisa dhaaf lambarkiisa waa wacay wuu iigeli way xaqiiqatan kadib wuxuu soo siiyay Sheekh Mukhtaar lambarkiisa xafidahullah kadibna waan isteelnay alxamdulillah ultimo waxaan soo dareemay marka dhibka aan soo maray mid ka daran inuu Siciid Maxamed Cabdulle ku jiro oo ah in uusan maanta nin rag oo la ciile u yahay oo xorriyadiisa aan haysan oo haddana lagu haysto wax qadar ah oo dhacay waayo dadka shilku uu dhacay waa qadar tani waa mid ka duwan samafalka inta badan looga bartay in ay sadaqa u bixiyaan dadka ladan ama hantilayaasha waxaana sawir ka bixinaysaa ladan inay ahmiyadda kuwaad siinayso sida ay mar kasta qayb uga noqon lahayd taageeridda dhibanayaasha la ildaran duruuftii la soo gudboonaatay taasi oo ay ku sababaysay mid bulshada Soomaaliyeed tusinaysa inay tahay qof ogsoon caawinta iyo gacantii loo fidiyay xilli qudheedu ay duruufi la soo gudboonaatay ladan booskan sidaa sheegtay waa booska kaliya ah garab ku lahayd inaad garab booska ka timaadid halkan timaadid booska kaliya aad lahayd aad wareejisid dadku xataa si ku arkay wallahi xaqiiqatan waxaad maalin la socotaa aniga qof waardi ah oo ay lahayd maxaad inta lacag sameysay lacagta uga bixin weyday ninka la Siciid inta aad booskaaga hantida aad ku wareejinayso runtii qof kasta bini aadam afkaartiisu dhiibanay hooyada Allah u naxariisto qabrigan Allah u nuuriyo horta booskan hooyada way ka soo galay marka koowaad dhaxal aan hooyada ka helay buu ahaa maanta xasuusta ugu dambeysay oon hooyada ka helay ugu horeysay aan hooyada ka helay ahayd ilaahay min riyaad aljanna hooyada ha uga dhigo ilaahayna hu naxariisto daa ugu dambi dhaafo iyadoo maanta 10 dhaxal ugu jiro oo ramadaan su'aasha ay weydiin waxay ahayd muwaalan tahay way aad hooyada booskaad ka dhaxashay aad ugu gadatay nin xabsi ku jira xaqiiqatan waxa booska ana lahaa shalay hooyada baa ilaahay iga siiyay maanta ana gorowsaday inaan gurigeyga iyo meheradayda iyo meesheeda aan alla uga soo tago xaqiiqatan oo aan maanta adiga xataa guriga ilaa uga soo tago li ajli Siciid dartiis khalifa waxaan marxaati ka tahay marag anoo ilmeynayna ku soo waxay Sheekh Mukhtaarna waa ka marxaati maxaa la ilmeynay waa dareen qalbigayga Siciid ma aqoon uma lahayn laakiin waxa ay damqay dhibaatada shalay social media ay keentay baasana keentay ya shalay social media maxaan ay keenay dabcan dib aan dareemay alxamdulillah ilaahay baa iga fayday ilaahayna Soomaali buu igu soo dhiibay rizq ilaahay meel buu ka siiyaa meeshu kuugu talagalna ku soo maraa alxamdulillah saasa tamaanta waxa anu qarwaqsan waaye inuu isaguna ku jiro xabsi anigana aan gurigayga raaxa ku seexdo dimirkaygu isiin waaye islaamnimo ay siin waaye Soomaalinimo ay siin gabarnimo laakiin alxamdulillah Allah uu waafajiyay inaan maanta halkii hanti aan garow kula aan bixiyo oo wallahi booskaas wallahi kula alxamdulillah maanta gacantaydu waa ka wareegay min janna buu ilaahay ka rajeynay inaan ka helo min riyaad aljanna hooyadina ilaahay ka siiyo marka waxaan leeyahay aan isku kacno marka aan iskarab qabanno oo iskarab istaagna baa wax noqonaynaa marka walaalkeena baahan u dhibrina baa wax noqonaynaa boosas halka uga timid ha wallahi boosas halka waa hatta dhar masooqad alaab masooqad waxa ay khamiista oo ku beegaya insha Allah suuqa khamiista baxaya ilaahay waxa fadligiisa inaan Siciid Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi ugu tago jeelka marka aan ku Siciid Maxamed Cabdullaahi qof ku madaxii laakiin waxaan kugu wareejiyay hantideedii garow ku taalay aan indhihiisa ka hub oohin farxadeed
taasna waa alxamdulillah waa nimco ilaahay ugu talagalay nimcada qofku doono ilaahay siiya waan ku baraarugsanaa ilaahay barisaaqada ay siiyay inaanan ku caasinin inaan jeclahay meesha ilaahay ugu talagalay inaan ku bixiyo